بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسنا قيارتا نلا سعوتا ميل كستا iyo madal kasta oo aad naga daawanaysaanba soo dhawaada waa 10ka bisha May sanadka 2026 xiisadii ugu dambeeyay wararka gobolka Bariga Dhexe ayaan rabaa xogtii ugu dambeysay inaan idin la wadaago iyo dhacdooyin waaweyn oo soo baxaya oo ka imaanaya madaxda caalamka qaarkood haddii aan ku horeeyo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu helayo xog ku saabsan dawladda Iran inay nabad rabto isla markaana arintaasi uu soo dhaweynayo suuragalna ay tahay in heshiis lala gaari karayo dawladdaasi sida ugu dhaqsiyaha badan Trump waxa uu rabaa xaaladda Iran inuu iska soo gabagabeeyo ka hor 14 bishan uu socdaal ku tagi doono magaalada Beijing halkaas oo si aad u heer sareyso qorshe uu yahay in lagu soo dhaweeyo haddaba hadalkiisan sidee loo fasiri karaa maduur xul diblomaasiyadeed oo qarsoonaya ku jira mise waa hadal dhaba oo cad iyo waxa Trump uu doonayo oo dhameystiran qodobada kale aan idin hayo waxa kamid ah Israel ayaa markii ugu horeysay damaanad qaad buuxa ka heshay dawladda Mareykanka iyadoo walaacay Tel Aviv uu soo gabagaboobayo muxuu yahay dalabka Trump ay Israel u soo bandhigtay oo isna yiri igu ogaada aniga umba arintaasi idin samaynayo oo meel cidla ah leedin ka tagi maayo dalka Ingiriiska mid kamid ah aan iraahday maraakiibtiisa burburiyaasha ah ayuu soo diray waxaana uu ku soo wajahan yahay marinka Hormuz si lamid ah dalka Faransiiska oo isna soo diray markabkiisa madiga ahaa haddaba labadan wadan ee gaashaanbuurta NATO ka tirsan Mareykanka ay u heelanayaan xilli Trump uu leeyahay haddii wada hadalka Iran uu socon waayo mashruuca Freedom Project xorriyadda ayaa dib ugu soo celin doona marinka Hormuz waxaan sidoo kale eegi doonaa warbixin uu sii daayay caawa maxad cilmi baariseed oo arrimaha sayniska iyo amniga caalamiga faaqida oo tilmaamaya in ay jireen xarumaha Mareykanka iyo Israel ay duqeeyeen oo aan horey loo ogeyn oo dawladda Iran ay ku qarinaysay farsamaynta nuclearka waxa uu leeyahay kani xitaa waxa lagu farsameynayay in bam laga soo saaro halkaasi oo si hoose ayaa xogta meeshan loo ilaaliyay xogtan sidee lagu helay warkan jiraalkiisna maxay ka tiri dawladda Iran aan ku horeeyay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd ka hadlay arinta wadanka Iran iyo jawaabta dawladda Mareykanku ay ka fili karaan in ay ka helaan ee la xiriirta arrimaha nabadgelyada iyo waliba xal u helidda colaadda gobolka Bariga Dhexe ee meesha sare gaartay Trump waxa uu yiri xogta aan helayo waxa ay tilmaamaysaa dawladda Iran in ay dooranayso wadiiqada nabadda oo aysan marnaba rabin in dagaal kulul faraha lala galo taas oo gobolka Bariga Dhexe iyo guud ahaanba caalamka u wanaagsan hadalkan Trump waxa uu imaanayaa iyadoo dunida si weyn indhaha ugu hayso safarkiisa wadanka Shiinaha uu ku tagi doono 14 bishan isla markaana la filayo ka horba faylka wadanka Iran in uu iska soo gabagabeeyo qobrada qaar waxay u arkaan Trump oo aan kiiskaasi iska soo xirin haddii uu Shiinaha aado gorgortan weyn oo diblomaasiyadeed miiska ma saaran karo waxaana ay u ekaanaysaa in Xi Jinping hogaamiyaha wadanka Shiinaha uu ka codsanayo in arinta Iran uu meel ka saaro warbixintu waxay leedahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu filayo in Iran uu aad ugu dhowdahay buu yiri inay jawaab soo jeedinta Mareykanku ay sameeyeen ay ka bixiso iyadoo aad u naawalaysa nabad iyo xasilooni Trump wuxuu yiri Tehran wali waxa ay muujinaysaa rabitaan xooggan oo ku aadan heshiis lala gaaro Mareykanka inkastoo cadaadis military iyo dhaqaale uu saaran yahay dawladdaasi hadalkan ayaa yimi xilli uu sii wado cunaqabataynta xanibaadda dhinaca badda oo ka dhanka ah Iran oo maamulka aqalka cad uu ku sheegay in ay tahay istiraatiijiyad lagu weeqayo dhaqaalaha Iran isla markaana lagu qasbayo in ay tanaasul samayso kana gudubta barnaamijkeeda nuclearka iyo siyaasadeeda gobolka saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in xayiraadaasi ay si weyn u shaqeynayso isla markaana ay cadaadis culus saarayso buu yiri dhaqaalaha Iran waxaana sidoo kale uu cadeeyay in dhammaan ikhtiyaarada wali miiska saaran ay hadda yihiin kuwa hadalladu ay fashilmayaan haddii dhinaca Trump
dagaal lagu soo jeedo in uu galo taasoo dowladda Iran xanuunjin doonta bay yiraahdeen sida ay hadalkooda u dhigeen madaxweynaha dalka Mareykanka Trump waxa uu sidoo kale kalsooni geliyay nidaamka Israel oo ka baqaya dagaalka in looga baxo dowladda Mareykanku ay qaadato kaliya xabad joojin taas oo dhibaato weyn ku noqon lahayd nidaamkaasi maadaama aanay ku filnayn kuna aadin dowladda Iran marka cudud miisaaniyad iyo waliba dhaqdhaqaaqa aqoonta iyo gantaalaha la isbarbar dhigo sida uu tabinayo channelka 13aad ee Israel ayaa baahiyay in saraakiil sare oo Israa'iili ah uu shaaciyay sarkaal sare oo Israa'iili ah uu shaaciyay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ra'iisul wasaaraha Israa'iil siiyay una xaqiijiyay in uusan wax tanaasula ka sameyn doonin arrinta uraniumka ee nuclearka sida wararku sheegayaan Trump iyo Netanyahu ayaa u sheegay baaliri in go'aanka maamulka Washington uu si adag ugu taagan yahay samarkaana dowladda Iran aan looga bixi doonin arrintaasi la xiriirta nuclearka inay sii haysato oo labadan dhinacba ay isku mowqif ka taagan yihiin hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli dadaallada diblomaasiyadeed oo adag ay socdaan wada hadallada la xiriira xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ay cirka isku shareertay iyadoo Washington ay cadaadis dhaqaale iyo military oo xooggan ku haysa wadankaasi nidaamka Israa'iil ayaa muddo aad u fog ka walaacsanaa awoodda sii kordhaysa ee dowladda Iran waxaana uu ku tilmaamay in haba yaraatee aanay aqbali karayn in nuclearka dalka Iran uu sii shaqeeyo haddii aan si eego xoga la yaab leh ayuu soo bandhigay maxadka daraasaadka ee la yiraahdo Institute for Science and International Studies oo dalka Mareykanka ku yaala waxa uu leeyahay maxadkan dowladda Mareykanka iyo nidaamka Israa'iil ba waxa ay duqeeyaan xarumo qarsanaa oo nuclearka lagu farsameynayo ma aha meelaha lagu hodmiyo ee waa meelaha ujeedadiisaba laga amaamudo oo la rabay hanaanka militariga in loogu bedelo oo bab nuclear dowladda Iran ay soo saaraan waa sida uu maxadkan cilmi baaristiisa ku leeyahay warbixintiisa haddii aan eego oo telefishinada qaar caawa ay xiganayaan warbixin uu soo saaray maxadka la yiraahdo Institute for Science and International Security ayaa sheegaya in weerarada Israa'iil iyo Mareykanku ay ku qaadeen Iran ay si gaar ah diiradda u saareen burburinta awoodda Iran ee sameynta hubka nuclearka halkii si toos ah loo beegsan lahaa xarumaha kobcinta uraniumka falanqayntan ayaa lagu sheegay in sawirada yaxgacmeed ah ay muujiyeen waxyeelada cusub ee gaarta baa layiri xarumaha kobcinta uraniumka inay tahay mid muhiim ahayd maadaama qaar ka mid ah goobahaasi hore loogu burburiyay weerarkii dhacay sanadkii aynu ka soo gudubnay 2025 isla markaana muddo 12 maalmood socday taas bedelkeeda waxa ay diiradda saareen baa layiri xarumaha lagu tuhunsan yahay in ay la xiriiraan sameynta iyo horumarinta hubka nuclearka oo ay ku jireen goobo cilmi baariseed goobo horumarineed iyo kaabayaal farsamo oo muhiim ahaa meelaha la weeraray waxaa ka mid ah min Siday oo lagu eedeeyay baa layiri ama lagu tuhunsanaa inay door muhiim ah ku lahayd dadaalada Iran ee la xiriira soo saarista hubka nuclearka sanadka 2025 ay weeraradaasi dhaceen oo si weyn indhaha loogu hayay ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale hore u sheegay in deegaano kala duwan arintaasi lagu hayo laakiin meelaha wararka soo baxaya ay tilmaamayaan la weeraro waxaa ka mid ah xarunta la yiraahdo Talqaan 2 oo ku dhex taala baa la yiraahdo xarunta militariga ee Britain taas oo la sheegay in lagu sameyn jiray tijaabooyin la xiriira walxaha qarxa iyo horumarinta hubka nuclearka warbixinta maxadkan markii si qoto dheer loo dhiraandhiriyo waxay muujinaysaa dowladda Iran in ay si rasmi ah gacanta ugu haysaba in ay samayso nuclearka waxa sidoo kale warbixintan ay leedahay jaamacadda la yiraahdo Malik Ashtar University oo ku taala Tehran oo Israa'iil ay si toos ah ugu xirtay baa la yiri horumarinta hubka nuclearka halka dhismooyin shaybaara ah oo ku dhow jaamacadaasina burbur xooggan ay gaareen intii weerarada ay socdeen waa sida ay labada dhinac sheeganayaan
sidoo kale meelaha la weeraray ee tuhunka laga qabay waxaa ka mid ah jaamacadda Imaam Hussein oo ciidamada ilaalada kacaanka jamhuuriyadda raacsan. jaamacadda waxaa la sheegay qayb hoose oo dhulka ah in ay farsamaynta nuclearka ka socotay oo Mareykanka iyo waliba Israa'iil ba ay maalin ogaan lahaayeen dowladda Iran ay ku biirayso wadamada ku hubaysan nuclearka oo aan lagu degdegi karin. haddii aan sii eego wararka gobolka ka jirana, dowladda Ingiriiska ayaa markan aad moodaa inay ka jawaabayso dalabkii ka yimi dowladda Mareykanka ee ku saabsanaa arrimaha la xiriira caawinta marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz. kadib markii caawa dowladdaasi ay ku dhawaaqday in markabkeeda burburyaha ah ee HMS ay u soo diray doonaan gobolka bariga dhexe kuna soo fooleeyahay marinka Hormuz. markabkan oo la yiraahdo HMS Dragon ayaa horey loogu soo diray Mediterranean-ka, laakiin waxa ujeedadiisu ahaa in uu difaaco jasiiradda Qubrus xilligaasi oo dagaalka dalka Iran lala galay oo aad u weynaa. go'aankan cusub ee lagu wareejinayo markabka in la geeyo bariga dhexe ayaa wali waxa u baahan yahay baa la yiri mid jawaab looga rabo dowladda Iran in ay bixiso. horey dowladda Faransiiska ayaa talaabadan oo kale u qaaday oo markabkeeda Decor ah kan kaliya ee madiga ah ee diyaaradaha xambaare ee Faransiisku uu gobolkaasi soo aaday. waxaana dhinacyadan ay muujinayaan in ay wali xiisada adag tahay. soo laabashadooda waxa uu ku soo aadayaa xilli Trump iyo waliba gaashaanbuurta NATO ay gurada iskula jiraan, isla markaana Trump uu ku goodinayo in mashruuca xorriyadda maraakiibta uu soo celin doono marinka Hormuz haddii dowladda Iran jawaab lagu qanco ay keenayso.